ولا ندي أجل سبتها فالله وحين كا عصني أنا سبسكرب نو صارتو جمرك أنا فرق السد ولا صعدت magacaygu waa Maryam waxaan jiraa 18 sano sheekadan waxay igu dhacday markaan jiray 14 sano aniga iyo hooyaday iyo laba gabdhood la dhalatay ayeeyooyinkayga iyo awoowahayga waxaan soo aaday dalxiis yar muddo dheer anaga ma aanan sarkin anigana aad ayaan u faraxsanaa maalinkaas kadibna waan soo dhaqaajinay meeshaan ku soo cuntaanay waan ka soo baxnay waxaana soo marnay waddo zigzag leh oo qalqaloocan oo si dhib leh loo baxsado kadibna waxaan imaanay wadada meeshii kala goodo dhinaca waxaa ku qornay Benig dhinaca leeg marka anagana waxaan qaadnay dhinaca ay ku qornay leeg aabahay ayaa gaariga wadaayay anagana gadaal ayaan saarnay sidaan xoogo u soconay waxaan aragnay waddo kale oo ay waddo burbursan oo cabsi leh anigana waan ka soo leexanay wadadii kale ayaan soo raacnay sidaan gaari furnay walaashii hurdo qabatay anay igu soo kordhayeen labadaba way seexdeen anigii hooyadeena waxaan ku baashay taleefan hooyadeena waa jiiftay mar qura ayaa madaxa i xanuunay hooyadii furaha gaariga igu dhigtay waxay ugu dhahday bax gabadheeda gaariga iska gal iskana soo waan soo socday baakinka iyo meeshaan joognay xoogaa ayay isku jiraan markaan gaariga kusoo dhawaaday ayaan waxaan arkay arrin aad iiga naxsay nin odaya oo taagan gaarigeena hortiisa wuxuuna lagu caato dhar jeexan weji qalalan cabsi leh ani aad ayaan u baqay si tartiib ayaan u soo socday waan u wacay muusan ii jawaabin wuu isoo fiiriyey anigana aad ayaan u siinahay kadibna meesha ayuu ka dhaqaajiyay wuxuu iska dhigay qof baxay anigana waxba ka marin gaariga ayaan dhex galay isoo fiiriyey markuu sii socday gaariga ayaan dhex galay waan loo garaystay kadibna waxaan taleefankii iska qabsaday waxaan is lahaa qof iska waca hooyaday aan wacay hooyadii taleefankeeda wuu dhacay ma aysan iga qaban daqiiqad kadib waxaan arkay ninkii oo gaarigayga dhinac istaagan aad ayaan u naxay waan kheeliyey gaari hoonk ayaan yareeriyey ninka wuxuu isku dayay inuu albaabka furo sayd ayaan usii kheeliyey hooyaday ayaan wacay aabahaygiyo waxay qabta ma laha aad ayaan u naxsanahay hooyadaan wacay wax ii imaada male hoonka yiri waan cabsanayaa qeyle meeshaan ku qadeeraynay iyo gaarigana baakinka ku jira meel dheer macquulna ma hoonkiisa degdeg looma qabo aniga waan cabsanayaa waxaan soo xasuustay waalidkeyga ayaga la waxay sameynayeen taleefanaha ay ku mashquulsanaayeen maysan maqlayna wicitaankeyga waan cabsanay wuxuu isku dayna gaariga soo furo aniga aad ayaan u baqayaa oo isoo fiir wuxuu dhaha marwan waad dhimanaysaa waan ku dilayaa kadibna wuu iga dhaqaajiyey aniga waan naxay saad ayaan cabsi kadib gaariga ayaan ka degay waan soo cararay ilaa aan ka imaaday meeshaan ku qadeynayna markaan soo cararay kadib furaha gaariga ayaan miiska ku tuuray anigoo nacsan hooyadii ay dhahday maxaa kugu dhacay arrintii oo dhan ayaan u sheegay markaas hooyadii waxay dhahday amay waxaa isna cabsin leeyihiin aabahey iyo waxaa lagu soo daray awoowaheyga waan isoo dhacay anigoo weli cabsanahay oo isdhahay ninka amuu ku qabtaa oo iska oonaya oygeyga ma arkin waxaana lahaa maanta dayn lagaa soo gaar lahayn waad dhimanaysaa hooyaday ayaa ii yimaadeen sidii ayay uga sabeen anigana waa cabsanayaa weli hooyaday gawaarida meesha taalla ayaa fiirisay wax qof shaqsina kuma arkin hooyadii waa yaabtay waxaas ilaal waxaan macquula mise waa gabadhi waxay ku riyootay walaalkeenu sidoo kale wuu soo waayay qisadan waxay dullaa qiso aad u xanuun badan weligeena aniga inta ka dhima iloobi doono hataa security-ga waa la weydiiyey waxba kala mooga wuxuu dhaha maya meesha qofba ma uusan soo galin maalinkaas ilaa hadda waxaan ka fikiraa hadduu ninka ku imaada kabaran oo ku dilo mar walbana soo xasuustana waan cabsadaa sheekadaana waxay u dhacday markaan jiray 14 sano haddana waxaan jiraa 20 sano darbiyan ahay yaa idumi kara daa'inkayga aan ka dambeeya darbiyan ahay yaa idumi kara daacadnimo ah igu diide dulinima
doontee duruuf xumo intii oo igu daye intii igu duufee oo ila dagaale walaal haddii aan muuqaalka ka heshay subscribe like share saar haddii aadan keenin fadlan subscribe like share noo saar fadlan waa naga codsi haddii wax walba shaab qabto waxaa nagala soo xiriiri kartaa barteena instagramka whatsappka iyo commentiga fadlan nala soo xiriiro walaal haddii aad dalabka cusub tahay fadlan waxaynu kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saarto